السلام عليكم ونمعة محمد خليف وقبل لحدة عيالة لقى قاطي وريالة وحي إسلامه وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله نهاي وريالة وقرب استاغ علمي وأيدي عينهن أقونتها قعنتا يدين waa laga saaray gacanti kale ay galeen guriyo lagu kala qaqobay iyo meelaha munaasab ah inay joogaan gabdhaha kamida waxay u qoreen waali inay waalan tahay isbitaal laba wiil ku hayaan ilaa hadda waxay ku sugan tahay waxay ku direen wax war ka hayo ama soo arka midna malaha isbitaal ay ku jirtaa ina arka leeyma ogola community-gi dadka inay arkaan ma ogola mid kamid ah halka meel ay ku dayacantaa halkaas iyadoo qabowga ay raydkaas lugaysaa cayaalkii laba kamid ah waxa way madaxii baa googay wal ilmo madaxa loo dhaqo gacanta lagu hayeen labadii wiil oo yar ka ahaa ay baa leefleef sida cunugeerka lix jirka ay sheegay ay baa leefleefo oo baadar gareeyo islaam markaa dhahooy waa islaanta ugu sheegweedo ku istaa warti gaalada ay waxay u dhahay hooy it's okay she's baby ayga baby why she's okay dib kuma geysana cunugu wuxuu dhahay sasaan qaade hooy ayaa nafta ii keenay cidiga cilnaysa male aniga awood ma lihi aan dhaho ayga iga daylma cid in orgaraynaysa cid hadalkayga hoos qaadaysa male Soomaaliya maanta meeshaan taagan anaga is dhignay Soomaaliya gacmaha is qabsana meeshaan maanta taagan anaga is dhignay ilmihii agoonta waa ay dayacan yihiin daryeel ma haystaan aniga bisha waxay dhaheen labadeeda la qabanayaa wax la dhaho maxkamadda maxaa lagu gaara ka sakeebe maxay tahay ayro gubina dayacan yihiin dhibaato jirto waa iga seexateen ii istaaga intii shahaadato oo dhahda laa ilaaha illa muhammad rasuul ilmaha yarka agoonta qofkii wax ku sadaqaysta ama qofkii wax geysto ajar buu helayaa aabood waa nin dhintay maanta waxa waaye nin dhulka ka hooseeyo waa nin mar dambe dhalaynin fir iyo magac buu ka hareen fir iyo magac ilmahan ka joogan nin bay magaciisa ka joogan walaalayaal u istaaga adinkoo qabyaalad u fiirinayn adinkoo u fiirin reer hebel ilmaha Soomaalinimada ugu istaaga shalay saad u garab istaagtay maanta u garab istaaga saddex kamid oo yar arka saddexda marka arka waxa waaye laba kamid waa labada wiil oo yar ay gabadhii baa mar lay tusaa hal saac waqti laba week dhan laba maalmood mar layga tusaa hal saac markaan ka hadlo dhahoyay baa leef hooyay baa dhibaatay cid hadalkeena naga hoos qaadaysa mala cunugeerka cidagaysanaysa malaha meesha waxa waaye cadaalad darra ka jirto Soomaaliya waa u badantiin maanta gobolka Minnesota waa u badantiin ilmahaas Minnesota meel kamid ay joogaan intii dacalada America joogto waa meesheeda inta joogta loo gurmay loo soo saaray kii loo yaraha kii aqoon-yahan aha kii macquul aha ilmahaas sababta waxay ku nooliyeen dhaqankooda soo ogaan lahaa waa muhiim qofkii aqoon-yahan oo loo baahan qofkii duceynayeen oo loo baahan walaalayaal u garb istaaga ilmahaas waa agoon aabood mar damba ma dhalaayo aabood nin dhalaayo damba soo noqonayo waa nin maanta qabri ku jiro maanta duu noolaan wax dhan ay ahaan lahayd waa bilaa aabo hooyo kaligeeda korsanaysa loo dhacdhacis waa 6 ciyaal waa 4 gabdhood 2 wiil maanta haday ilmahaas baxaan oo dhul gaalo u galaan waxa way waa xibin islaamka ka baxday walaalayaal islaamnimada la isku garab istaaga qabyaaladii qabiilka inta la iska daayay hal isku garab istaaga Soomaalinimo hal isku garab istaaga kelmadda laa ilaaha illa allah muhammad rasuul naga dhaxaysa islaamka dhan ka dhaxaysa hal isku garab istaago maanta guri madow baan fadhiyaa sariirahoodi iyo gurigooda waa ka guriga kaliya maanta dhex taagan oo ka dhaxalay caaw labadaas sariirood iyo xoolashaan ayaga laha maanta guri madow baa la taago kuwa xoolashooda maran fadhigoodi waa kan fadhigaan adduunyada dhalo maanta guri ilmo dhaqan bay ahaayeen firiisanka dhulka u yaalo talaaga daaweyn u taal oo halkaas siriyaasha iyo alaabta iyo adduunyada dhan u taal qofkii arka gurigaan buuxay maanta ku jireen ilmahan guri la'aan ma haynin dayacay dhibaato heshay sariirahan iyo adduunka laba saarka adduunyadana ku hooyan jireen maanta waa guri maran oo madow aan dhex fadhiyaa ilaa inuu guri madow ina tagin oo maanta waxa ninkii loo xiro khayrka ana soo qoysaa la dhahay marka dhibaatada maanta ani hayso wax Ilaahay igu tala galay ma sabirkayga waxa lagu fiirinayaa iyo sidaan ahay baa Ilaahay ku fiirinay walaalayaal Ilaahay idinkan inaga badbaado awlaadiina alla inii badbaadiyo anigana garab istaaga Ilaahay dartiis kelmadda laa ilaaha illa muhammad rasuulullah aabood marda ma dhalay waa agoon qofkii maanta agoon wax ku sadaqaysta waxa waaye wax kasta Ilaahay u fududeynaya aakhiri adduunba walaalayaal garab istaaga guriga madow baa dhex taagana maanta